runay kusoo dhawo Botan Media shalay waxa laga soo dacweeyay ama lagu xirayba saldhiga magaalada Qardho maxay ahaayeen waxay lagu soo eediyay sideese lagu soo xiray adiga bismillaahir rahmaanir rahiim Ahmed waa dhawahay waana mahadsan tahay waxaan marayna inaad u horeysay oo soo wacday in codka siiyay waa noqonaysaa waayo kuwa badan ma ka biyadiiday waan soo jiray awood horta run ahaantii barnaamijkan lagu soo xiray barnaamij wax weeyaan dee amblig balaan dadku aaminaynin waxaa dhacday hadda goor barnaamij magaalada Qardho ka dhacay barnaamijkaas oo waxa waday Hayaan Institute oo cilmi baarista ah barnaamijkaas ay taliyo soo galay isaga iyo ku xigeenkiisa xoogaa waxay dhan waa joojinaynaa waxyaabo saas markii dambe barnaamijkii waa uu galay marka dadka meesha jooga fiidiyoo badan bay duubeen fiidiyoogii baa la gudbiyay page baa la soo geliyay aniguna waxaan dadka dhalinyarada bannerka ahaa meesha ka qayb galay dooda kadib fikirkayga iyo aqoontayda waxa ay tustay in macnaheedu barnaamijkina laga joojinayo inuu khalad ahaa waan soo sheer gareeyay bacdeen waxa dhacday in adu muddo 3 bari laga joogo in uu taliyaha saldhigu soo waco ilaa 4 bil meel laga joogo soo waco oo run miyaha run wayaan okay run maxaa Facebook macnaheedu uu sheer gareysay ma kula qurux badan tahay inaan sheer gareysay buu yiraahday waxaan ku fikirkayga ku cabiray wixii meesha aan ku arkay aan ku cabiray haye wuxuu ugu yiraahday in arrinkaas arin wanaagsan maaha inaan macnaheedu ka saarto baa muhiim ah waxaan ku leeyahay anigu kama saaray fikirkayga aan ku cabirtay wuxuu yiri okay sharciga inay kala saaraya waxaan ku yiri sharciga dad badan oo waxyaabo badan wuxuu sameeyay baa jira ku ka saa qabto waayaan wax khalad ma aan sameeynin bacdeen adigu haddana 5 bari kadib ayuu aniga oo meel xafiis jooga oo waliba hawl aan dadka u hayay bulshada aan kala hadlay raadiyo dal jiraan la joogay hawshaas oo aydan caruur curyaama ah iyo u baahan baabuurta ay ku socdaan in ay noo baahiyaan si aan lacag u aruurin oo dadka masaakiinta ugu gadno curyaamada ah haye aniga oo fadhiya buu ii soo galay soo ciidan oo wata soo kacbiyay waan raacay saldhigaan tagay waxa la leeyahay weydiin boorsada ka qaad mobilka qaad baa la yiri horada waxa laga galiyay muxuu ahaa qolka adoona garanay wax lagu soo xiray maha bas barnaamijku waxa isku kaadimay mido adigu 8 bari ka hor uu yiri maxaa u soo sheer gareysay bay ugu dambeysay waa sax marka sida aan ku galay meelaha soo ka hadlay maqla hadda dhahay gabadha waxbay Facebook dhigtay oo waa kana waan ugu gaftay waxyaabo noocaas ah dhahaya marka waxyaabaha la igu haysto waxa ay cadaatay marka inay tahay in Facebook waxaan u dhigay aan ku sheer gareeyay uu yahay haye sidaas baan ku joogay marka adigu muddo 4 saacadood ah baan ku jiray adigu saldhiga marka hore meel munaasabad bay geliyeen markii dambe laakiin gabdhaha CID ka shaqeeya baa yimaaday oo meesha ay gabadhaas uma haboona ka soo saara dadkii waxa kale kamid ah qaraankayga aniga ii doodi lahaa meesha joogo u diiday in la soo gudbiyo waxa kamid ah dadkii biyaha ii keenay dhalinyarada ahaa familka ahaa iyo u diiday inay soo galaan saasatan waa iska adkaystay oo meesha isku joogay adigu markii ahayd abaari 9kii baa waxay yimaaday gudoomiyaha gobolka Karkaar duqa degmada iyo ku-xigeenka oo gobolka Karkaar iyo waxa yimaaday liibaan oo jaamaca oo soo muhiimsmaa naxtooda xiriirka caalamiga marka intaas baa u yimaaday way la hadleen markii hore waa ka biyadiiday inuu soo siidaayo oo soo yiraahday waa ay xirnaanaysa waxa lagu waxa cadeen ku haysa xaq bay leedahay inuu soo siidaayo qareen baa u jooga anaga damiinka ah wixii cadeen ku haysa waa keeni kartaa wuxuu yiri waxaan ku hayo idinku waxa weeyaan iska daaya adigu dib dheer kadib waan soo baxay sidii baan ku soo tagay hawshuna waa socotaa ana xaq baan leeyahay oo dee wixii xaq leeyahay maqan wixii laga rabo iyo wixii khalad aan sameeyay asaga laga rabaa processkana waa socdaa ilaa maxkamadana insha Allah waxay noqonaysaa process cadaanaya waxyaabaha iyo 4 saacadood waxaan ku xirnaa cadeynteeda ah in aanu marno marka saga cadeyn aad dheeraad laga sugayaa ilaa muddo loo bariyaal sugaayay cadeyn kan maadaama soo cadeyn laan ugu xiran runay aad buu maasan tahay taliyuhu wuxuu sheegay in aad isaga si gaar u ataagtay miyay jiraan isku dhac hore oo labadiina ah maya anigu inaan taliska isla shaqeyno maahe oo waxyaabo u qabta iyaga maahe marnaba anigu iskuma dhicin wax taliska
runii aad buu mahadsan tahay mar badan baa dhacda in dad wariyaalaha dadka xuquuqda u dooda kamid ah sida adigoo kaleeto la xiro kadibna la sii daayo kadibna wixii kiiska halka lagu ilaawo marka maadaama xorriyadda heshay halkaas uga hareysaa mise ilaa maxkamadda barnaamijka soconaysaa maya meesha waxa weeyaan hadeer hadafkaa jiri jidha hadeer ma jidho wadanka hadda dhalinyaro haysataa waxa weye xoog waa dhalinyarada iyaga wadanka wuxuu tirayaa haddii la xiro de waxay noqonaysaa inaysan meeshaas waxba ka jirin marka waxa weeyaan anagoo dowladana tixgelinayna anagoo muxuu ahaa madaxdeeda mas-uuliyiinta tixgelinayna sharciga un baan maraynaa maahay wax dhibaato oo kale ama samaynayno runay ma jiraan taliyuhu wuxuu sheegay inuu jiro bosti aad qordhay aad ku aflagaadeynaysid madaxweynaha iyo taliyaha kusoo xirtay bostiga ma jiraa haashaalillah aniga waxa weeyaan intaan meel kale la gaarin ba dhalinyarada facebookiga igu jidha iyo dhalinyarada taqaanaba meeshuu dani iyo dowladiisa iyo joogto wada garanayaan